munaasabaddan oo lagu daahfurayay dib u howlgelinta iyo ballaarinta efemyada idaacadda Radio Hargeysa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cali Xasan Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Mustafa Cabdi Ciise Shiine xubno kamid ah agaasimo waaxeedyada wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo mas'uul ka socday shirkadda Telesom agaasimaha waaxda idaacadaha ee Radio Hargeysa Mudane Cabdirasaaq Cismaan Maxamed ayaa isaguna soo dhaweeyay daahfurka barnaamijkan lagu hawlgelinayo FM-yada idaacadda Radio Hargeysa ee gobolada dalka biluman ka soo horeeyay mala mas'uuliyiinta cusub ee wasaaradda loo soo magacaabay bishaasi runtii waxay yimaadeen iyadoo dhinaca FM-ka ay ka jiraan baahiyo fara badan oo laba ay shaqeynayaan markaasi tabuurcana ciladeysnayd FM-ta magaalada Hargeysa iyo FM-ta magaalada Boorama unba dabcan shaqeynayay kuwa cusub ee la dhigay magaalooyinka Ceergaabo iyo Barbarina iyaguna way bakhtisnaayeen inta kale FM-toodu waxay wax ciladeysan iyo dabcan markaasi kuwa dib u habeyn u baahan shirkii koowaad ee mas'uuliyiintaasi wasiirkuna la yeesheen waxa amar ku bixiyeen dhamaantoodba dib u habeyn lagu sameeyo maanta oo aynu u joogno inaynu markaasi xafladooda soo bandhigno dabcan waxay noqdeen idaacadaha hore ee ciladu ku timi kuwa ahaa markaasi kuwaad dhamaantood way laba jibaarmeen maanta oo 2000 watt bay noqdeen idaacadihii yaalay ee gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan agaasimaha waaxda dhaqanka Mudane Maxamed Xasan Cali Waji Saciid Saleebaan Nuur oo ku hadlayay afka isku duwayaasha gobolada dalka iyo madaxa suuqgeynta iyo bulshada ee shirkadda Telesom ayaa ka waramay dadaalkan oo ku tilmaamay waxtar ummadda u soo kordhay anagoo runtii ku faraxsan horumarka weyn ee qaranka iyo bulshadeena inaynu wacyi gelino runtii oo aaladihii aynu ku wacyi gelin lahayn ee bulshada ku gaari lahayn runtii horumarinteedii ka shaqeynayna waa maalinba qof baa jooga oo meel gaarsiiyo runtii maalin bay bilow ahayd maantana meel fiican bay runtii inoo maraysaa madaxda wasaaradda ee runtii hawsha ku heelanayd iyo dhammaan tiimamkii kala duwanaa ee aan wada shaqeynaynay muddooyinkii ugu dambeeyay aad iyo aad baan dhammaantood runtii ugu mahadnaqayaa anagu runtii shirkad ahaan waxaan u malaynayaa halkii ugu horeysay aynu iska soo galnay waxay markii idaacaddii quraanka la bilaabayay idaacatul quraan alkariim baa runtii bilowgii koowaad ee inoo ahayd oo shirkaddu runtii ay qaadatay in idaacadda quraanka meel kasta runtii la gaarsiiyo maadaama uu yahay barnaamij runtii waxa weeyaan khayriya maadaama uu yahay hadalkii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala in meel walba runtii la gaarsiiyo oo shirkaddu runtii ay u tafaxaydatay inay qayb lixaad leh ay runtii ka qaadato intii wasiirka iyo agaasimaha guud ay yimaadeen wasaaradda waxaa lagu sameeyay dib u habeyn iyo ballaarin waxaana la dhigay idaacad 2000 oo waad ah taasoo gaadhaysa dhinac walba 60 kilomitir dadweynaha deegaanadaasi kala duwan ee ka baxsan magaaladuna ay si toos ah u heli karaan una dhageysan karaan idaacadaasi intii ay taalay waxaanu ka sameynay warbixin aan ugu kurgalayno habsami socodka dhageysigeeda iyo sida ay bulshadu u helaan wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa waxaan ku helnay xog ballaaran oo nooga soo baxday dadweynahaasi ku taxan ama dhageysta idaacadda Radio Hargeysa ee ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyo deegaanada kale ee hoos yimaada waxa la isla qaatay isla markaana xogtii nooga soo baxday ay noo muujisay in korkac ballaaran ku yimi radio waxa la yiraahdaa mother of media waa hooyada saxaafadda waayo waa habka ugu sahlan ee qof kasta warku ku gaari karo ee uu ku heli karo marka ay hagaagsan tahay ee ay meel walba laga maqlayo saddex xaalad way ku wanaagsan tahay waa mid waxa weeyaan way jaban tahay receiverskoodu wax jaban weeyay oo qofku iibsan karo haddana dad dhan baa wada dhageysan kara oo wada maqli kara mid kale waxa ka soo baxaa waa wax lagu kalsoon yahay oo wuxuu ilaashadaa station-ka radio-gu magaciisa noocan hadda FM-ka aynu hadda daawanaynaana waa frequency-ga ama muujada ugu nadiifsan ee codka gaarsiisa bini'aadmiga short wave-ku wuxuu ku socdaa dusha medium wave-ku waa dhexdhexaad tani iyadu waxay martaa hoos bay martaa way dhib badan tahay si loo wada gaarsiiyo dalka laakiin intay gaadhaa qofku wuxuu ku helayaa receivers qalinkaaga leeg ay ku dhageysan kartaa hadana mobilada laga wada dhageystaa waxaana la helayaa iyadoo nadiif ah
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Mustafa Cabdi Ciise Shiine ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay dadaalada kala duwan ee wasaaradda ee ku jahaysan ballaarinta FM-yada idaacadda Radio Hargeysa iyo kobcinta iyo tayeynta barnaamijyada kala duwan ee laga dhageysto idaacadda. waxa wasiirka iyo tiimka imika aan ku joogno meesha oo wada cusubnahay u soo galay in dhammaan maanta dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland inta badan laga dhageysanayo idaacada tahay oo ku timi dadaalka iyo leadershipka wasiirka oo ahaa in wixii aynu qaban karno ayna dib u dhigan oo aynu dadejino hawsha mar haddii tilmaamihii iyo taladii wasiirku ay hirgashay inagana inta kale anigu markaa ugu weynahay waxaa laga rabaa inay u jeestaan dhinacii tayeynta barnaamijyada iyo wixii ummadda la gaarsiinayay waxay ahayd nasiib daro in wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo loo tiri inay ka mid tahay wasaaradaha ugu miisaaniyadda wanaagsan in haddana hawshii ay haysay ahayd oo keliya magac mar haddii Hargeysa iyo Booramo keliya idaacada laga dhageysanayay taa micnaheedu waxay noqonaysaa in warkii xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaranka guud ahaanba aanu dadka intiisa kala gaadhayn waxaan ogeyn oo cabasho badan ka jirtay in ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhageysan jireen idaacado kale oo waliba qaarkood ay gacanta ku hayeen cadawga Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxaa nasiib wanaaga in xiriyaha ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo aagaga fog ciidanku joogo ay dhageysanayaan idaacadda Radio Hargeysa. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane Cali Xasan Maxamed oo daahfurkan hadal ka jeediyay ayaa sharax dheer ka bixiyay siyaasadda qaranka ee ku wajahan tayeynta iyo ballaarinta FM-yada idaacadda Radio Hargeysa iyo idaacadda guud ee qaranka iyo qorshayaasha ku wajahan tayeynta barnaamijyada. sida la sheegay iyadoo la soo koobayo imika anagu deyntii aanu nimi waxaa shaqaynayay Hargeysa iyo Boorame waliba Boorame ka shaqaynaysay waxay ahayd 300 watt marka la soo ururiyo ilaa tii Boorame waa la weyneeyay 2,000 baa laga dhigay 5 meelood oo kale oo fadhiyay oo ha fadhiyeen de markii horena qaar yaryaalina waxa la geeyay kuwa 2,000 oo waaweyn Cergaabo Caynaba Burco Berbera Oodweyne marka waxa weeye isbedel weyn oo ballaaran runtii waa mashruuc aad iyo aad weyn imika dalka markay mid waliba 60 kilomitir gaadhayso dalka in badan way soo gaadhayaan marka laga soo qabto ilaa gobolka Salaar ilaa iyo Boorame isku xidhmaya dadka inta maraya way gaadhayaan marka balla calaagana 60 kilomitir dhinacyada bay noqonaysaa marka waa hawl aad weyn almost dalka in badan oo kamid ah waa la ku fargareeyay Cergaabana de hareeraheedii inta dadku degan yahay oo dhan 60 kilomitir dhinac kasta way gaadhaysaa meelaha muhiimka ah sidii imikaagaasi u sheegayeen waxaa ka mid ah in ciidamada qaranka ay jiidaha joogan ay idaacaddii dhageysan karaan oo quraankii dhageysan karaan oo wararkii dhageysan karaan oo barnaamijyadii dhageysan karaan sidaa awadeed waxaan u mahad celinayaa dhammaan shaqaale weynaha madaxda iyo farsamo yaqaanada